Badhasaabka Gobolka togdheer Madane Xamse Maxamed Cabdi oo kula hadlay qaar kamid ah warbaahinta xafiiska oo ku leeyahay xarunta maamulka gobolka togdheer ayaa ku dhawaaqay guddi ka kooban 13 xubnood kuwaas oo qaabilsan qaabada xuska maalinta 18 May oo ah maalinta dib loo soo laabashada xorriyadda qaranka ee Soomaaliland isagoo mid u magacaabay guddidaasina waa kan magacyadii guddiga oo ka kooban 13 xubnood waxa uu horeeya Sheekh Maxamed Ciise Cabdiraxmaan meeyarka magaalada Burco waa gudoomiyaha guddiga gudoomiye ku-xigeenka Maxamed Diiri Xayd oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka togdheer Cabdiraxmaan Ciise oo xogeeye oo ahna xogeeyaha xarunta maamulka gobolka togdheer Saleebaan Maxamed Maxamuud isuduwaha wasaaradda maaliyadda isuduwaha wasaaradda horumarinta maaliyadda shan Ismaaciil Xayir isuduwaha wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada jaamac Maxamed Cali maareeyaha wakaaladda biyaha Burco Yusuf Ibrahim Warsame isuduwaha wasaaradda warfaafinta Mastarka Case number 8 Mustafa Sheekh Maxamuud Umar gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka togdheer 9 Cabdiqaadir Xuseen Mataan gudoomiyaha bacadlayaasha Xasan Xamdulle Jaamac gudoomiyaasha bacadlayaasha koob iyo toban waxa weeye Saynab Yuusuf Cabdi Saciid gudoomiyaha ururka UNITA oo ah ururada madaxa banaan ee local NGOs ka howlgala gobolka 12 Ismahaan Jaamac Maxamuud waa Ismahaan Jaamac Tanig waxa weeyaan gudoomiyaha ururka qaranka haweenka naaw ee gobolka togdheer 13 Xasan Jaamac Warsame gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka togdheer 13 ka xubnood ayaa noqonaya guddiga u diyaar garowga 18 May ee gobolka togdheer waxaan ugu soo jeedinayaa guddiga halkan aan ka xaadiriyay inay hawshooda u qabsadaan si hufan oo milgale waa la tartamayaa goboladu way tartamayaan insha Allah bidnillaahi baari waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaynu noqono gobolka koobaad inaynu noqono caasimadda lafteeda aynu hadhowlaha ku daro aad iyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin su'aashaas su'aal meesha ku jirta ay tahay de xuska 18 May waa la xusayaa maalintii qaranka wax dhibaato oo kale oo jira ma jiraan dadku inagoo sooman ma waa xusi karaa waa yara dareemi karaa oo runtii labada cisho ee hore mar rabadaantu markay cusan tahay dadka waa ku culays laakiin wax ma aragtay laga hor istaagi karaa ma aragno oo waxa weeyaan haddii ma aragtay aynu inagu dadaalo waxa la geli ka hore waxa weeyaan waa saacado yar waxa la marayaa haddii Allah uu ogolaado waa maritaanka waa saacado yar waxa laga yaabaa 7 subaxnimo ilaa iyo 10 haddii ugu dambayso inay ahaato marka insha Allah intaana waxa weeyaan inay soo dulqaado xuska maalinta 18 May ayaa ah maalin ku weyn guud ahaan shacabka reer Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Somali Cable Burco